madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxa uu xadhiga ka jaray wadooyin cusub oo laga hirgeliyay magaalada Hargeysa isagoo dhinaca kalena dhagax dhigay wadooyin cusub oo laga dhisayo magaalada Hargeysa. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa xadhiga ka jaray wado cusub oo laamiya oo laga hirgeliyay xaafadda 26 Juun gaar ahaan jidka boqoliyo ka tuka loo yaqaano isla markaana waxa uu dhagax dhigay qayb kale oo laami ah oo lagu kordhinayo jidkaasi. munaasabadda xadhiga lagaga jarayay wadadan oo ay iska kaashadeen fulinteeda shacbiga ku dhaqan xaafadda 26 Juun iyo dawladda hoose waxa goobjoog ka ahaa maayarka caasimadda Hargeysa injineer Xuseen Maxamuud Jiciir xogayaha dawladda hoose xildhibaano ka tirsan golayaasha deegaanka iyo wakiilada iyo xubno ka mid ah guddiga xaafadaasi. maayarka caasimadda Hargeysa injineer Xuseen Maxamuud Jiciir oo ka hadlay halkaasi ayaa sheegay in dhismaha wadadan ay iska kaashadeen shacbiga ku dhaqan xaafadda iyo dawladda hoose waxaanu xusay inay wadadani tahay wadada ugu weyn wadooyinka caasimadda Hargeysa taasi oo uu sheegay in 1 kiiloomitir iyo bar kale oo wadadan lagu kordhinayna maanta la dhagax dhigay iyadoo maayarku sidoo kale uu sheegay in dawladda hoose ku howlan tahay dhismayaasha wadooyin kale oo laga hirgelinayo xaafadda. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in horumarka dalku ku imanayo wax wada qabsiga iyo iskaashiga shacbiga iyo xukuumadda isagoo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri horta runtii aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maayarka magaalada guddiga maartay horumarinta ee degmada 26 Juun ama Koodbuur waxa meesha ka muuqda runtii xilqaan aad u weyn Soomaalida hore u tiri gacmooda jir wax ku gooyaan waxaad moodaa maanta Soomaaliland sanadka 2012 inay ku tartamayso wanaaga waxa lagu tartamay la iska daydo waxa u fiican waxa wanaagsan la iska daydo waxaad arkaysaa maanta in degmooyinkii iyo gobolladii ay ku tartamayaan qolo walba sida wax u qabsan lahayd qofkii wax qabsadana dawladdu waxay ku qasban tahay ama ku qasbanahay in maartay waan gacan ka siino oo diyaar u nahay hadii dawladdu hoose tahay hadii dawladdu dhexe tahayba in la taageero cidii wax la timaaday waa mid meesha taala laguna maartay laguna qasban yahay runtiina waxa weeyaan arinta muhiimadda waxa weeyaan in iskaashigu qiimaha u dhalay waa ka maanta ay joogno in wado 2 kiiloomitir oo laba haada oo marka sidii loo xisaabshaan u sameeyay 4 kiiloomitir noqonaysa in man dadweynaha iyo maartay dawladda hoose kaashadeen wax aad u weyn runtii waana wada qiimo leh wadadani waxaan ku dardaaranaa in jiritaanka wadada la ilaashado dadweynaha waxaan ka codsanaynaa in wadada jiritaankeeda ilaaliyaan dawladda hoose waxa leeyahay maanta waxa la dadaal badan baad muujiseen hadda wixii ka dambeeyay tayeynta in lagu dayn la tayeeyo oo aanan yaani 10 kiiloomitir oo tayeelay wax ka wanaagsan 5 kiiloomitir 6 kiiloomitir oo tayeelay oo waqti badan u joogta waxa idinka ugu dardaaranaa idinkana in waxaynu tayeeyasho oo hadda wadooyinka sida tayada loo adkeyn lahaa ee nagu soo noqon lahayn in lagu xisaabtamo dadweynuhuna sida u ilaalin lahaayeen u dhowran lahaayeen. madaxweyne ku-xigeenka ka hor halkaasi waxa iyaguna hadallo ka jeediyay xildhibaan Xasan Xayd oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo xubno ka mid ah guddiga xaafadaasi ee ku howlana tabarucaadka lagu dhisayo wadadaasi ururintooda. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenku waxa uu xadhiga ka jaray wadooyin cusub oo laga hirgeliyay xaafadaha Gacan Libaax iyo Axmed Dhagax isagoo sidoo kalena dhagax dhigay dhismayaal kale oo wadooyin oo laga hirgelinayo xaafadahaasi.